السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال soo dhawaad waa muuqaal cusub channelka intaadka kubadda. Asxaabay muuqaalka kale weeyo maanta kadib muuqaalkii koowaad maanta soo gudbinay sida aan ku ballanay inaan habeen kasta soo qeybiyo muuqaal podcast ahaan oo kala muuqaalkan maanta runtii waqti badan baan haysan inaan kaga fikradaha aan ku soo gudbin karayo. laakiin wararka soo dhacay akhbaraha aan helay ilaa 4 saacadood ugu dambeysay ayay kaga filneed fikrad kasta oo kale oo soo gudbin karayay min Rayo Walla oo maraya Barcelona mar dambe Madrid lagu arkay Sergio Ramos oo dhaawacmay oo seegaya kulamada ugu adag xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid labada kulan Liverpool iyo kulanka kooxda Barcelona xulka qaranka Jarmalka guuldarooyin qaraar ka soo gaadhay kooxda North Macedonia runtii xulka qaranka Germany halkee ayuu socdaa sidee ayayna u eegtahay waa saddex war oo aad iyo aad u culus oo saddex war oo tafatirid mudan oo saddex war oo aynu isla fagurayno marka soo dhawaad asxaabaydii oo mahadsan haddii aan ku horeeyo Erling Braut Haaland oo maanta lagu arkay magaalada Barcelona wakiilkiisa Mina Rayo Walla iyo bihi Erling Haaland runtii cid garanaysa Mina Rayo Walla waxay garanaysaa inuu yahay nin ciyaaris badan uu yahay nin kooxaha marba jecel inuu koox ku dhawaado oo cilaaqo la sameeyo kadibna uu ka fogaado oo koox kale ku dhawaado si uu u sameeyo ciyaaryahanka uu wato buuq badan ugu sameeyo oo aakhirkana ugu dooro kooxda commissionka ugu badan bixinaysa Mina Rayo Walla waxaan xasuusanaa xilli ciyaareedkii ama xagaagii 2016 waqtigaas oo Paul Pogba wakiil u ahaa waxaan xasuusanaa inuu wada hadal la bilaabay kooxaha Real Madrid, Barcelona, Chelsea iyo Man United runtii waxay ahayd kooxda ugu soo jiidashada yar leh maadaama ahayd kooxdii hore Paul Pogba oo qaab xun uu kooxda uga yimi Real Madrid iyo Barcelona kooxaha dunida ugu wanaagsan ay ahaayeen Messi iyo Ronaldo ay haysteen Chelsea laga yaabo inay Man United oo kale iska ahayd laakiin muxuu doortay Man United wuxuu doortay Man United waxa ay siiraysay waqtigaas 10 milyan oo commission ah Rayo Walla ahaan markana kama duwana xaaladdu oo Erling Haaland wuxuu u yahay runtii salcad ka qaalisan Paul Pogba salcad ka muhiimsan kana qurux badan kana wanaagsan kana lacag badan soo xareen karaysa isaga iyo aabihiisba Barcelona waxay u arkayd kulay inay ahayd kooxda ugu dhow markii maqlay duhurkii wararka Rayo Walla oo yimi magaalada Barcelona taageerayaasha Barcelona aad iyo aad ay u farxeen waxayna u qaatay inay yihiin kooxda ugu dhow laakiin laba bilood ayaa ka hadhay wali suuqii kale iibsiga Barcelona ma aha nooca kooxaha ku wanaagsan wada hadallada goorta hore la dhameystiro waxaan xusanaa oo wada hadallo badan oo jiitay sida Philippe Coutinho oo kale Ousmane Dembélé oo kale tanna kama duwanaanaysa ayaan marinay hadii ay Barcelona ay noqonayso kooxda iibsanaysa laakiin isla galinkii dambe ama 3 saacadood kadib waxaan maqalnay Rayo Walla oo hadana magaalada Madrid jooga oo doonaya inuu hadal la furo Florentino Perez iyo kooxda Real Madrid dadku markii waxay gartay waa typical Mina Rayo Walla waa Rayo Walla la garanayay waayo ninkan inta lama saaxiib ah inna ma garanayo xitaa sida uu sheegay Michel Zorc oo hagaasimaha suuqa kala iibsiga kooxda Borussia Dortmund waxa uu sheegay diyaaru man hinaan fasaxno Erling Haaland waayo waxaan xasuusanaa Marco Rose tababaraha Borussia Mönchengladbach haysta xagaaga dambe iman doona kooxda Borussia Dortmund inuu si cad uga dalbaday maamulka Dortmund inaan la fasaxin Erling Haaland laakiin miyuu danaynayaa Mina Rayo Walla waxaas wama runtii hadii imika aanu arag heshiis wanaagsan oo jiidasho leh ma iibinayo laakiin hadii uu arko heshiis lacag badan ka faa'iideeyaan commission ka faa'iideeyaan waxaan u maleynayaa laba jeer inuu ka fikireen waayo waxa jooga 4 kooxood ama 5 kooxood oo aad iyo hanti badan oo aad iyo aad u qani ah oo wax kasta bixin karaya kooxda tahay kooxda Real Madrid talabaad tahay kooxda Barcelona saddexaad Manchester City afraad Chelsea tashanaadna adigu darajo ka yar Manchester United oo iyaduna si la dhihi karo wala xiisanaysa laakiin Man United waxay la wareegi kartaa oo kaliya hadii ay soo bandhigto qiimo ka badan qiimaha kale iminka Barcelona iyo Real Madrid ayaa labada kooxood ee ugu cadcad waliba kooxda koowaad ee la dhihi karo waxay sameysay dadaal koowaad iyo isku day koowaad waxa weeye kooxda Barcelona Juan Laporta waxyaabihii uu ku galay doorashooyinka waxa weeye inuu keeni doono kooxda saxiixyo cusub oo horumar sameyn doono marka laga yimaado Haaland waxaan maleynayaa waxa ay soo wadaan sidoo kale Aguero Wijnaldum Memphis Depay Eric Garcia waa 4 saxiix oo magac leh saddex Garcia marka laga yimaado 3 ciyaaryahan oo magac leh oo aan $1 ka bixin doonin kooxda Barcelona وبزنس وناسب ما لديك لكن يتهي revolutionkii ama kacdoonkii laga filanayay Juan Laporta ma aha laakiin afar ciyaaryahan oo quality oo 1 milyan aan ka bixineen waa wax wanaagsan inkastoo aanay talaabo hore u qaad aanay ahayn haddana marka loo eego qof sanadka la wareegay madaxtinimada kooxda Barcelona waa wax qabad ay la dhigi karaya kooxda Real Madrid iyagu runtii wax ka mashquulsan yihiin inay garoon ay dhistaan waxay ku mashquulsan yihiin inay tababare ay keenaan waayo Zidane xaaladiisu ma cadda Zidane ma joogayo ma noqonayo ma tegayo
wararka qaar waxay sheegayaan inuu tagayo kooxda Juventus sida darteed kooxda Real Madrid ayaa diyaarsatay Balabiga Raúl González mise Joachim Löw oo hadda ka tagaya xulka qaranka Germany laga yaabo in Real Madrid hadii ay dayacdo Haaland in Mbappe ay ku wareegi doonaan Mbappe wuxuu yahay ciyaaryahanka ugu macquulsan ee ku soo biiri doona kooxda Real Madrid waayo wali ma go'aansan inuu heshiis cusub saxiixo kooxda PSG hawlaha kooxda Real Madrid aad iyo aad bay u cakaran tahay waayo dhaqaalaha cid kasta way ogtahay dhaqaalaha Real Madrid inuu xil ciyaareedkii hore iyo xil ciyaareedkanba uu aad saga hoosay sida darteed dadku ka filan maayaan kooxda Real Madrid inay sameyn doonto xagaagan saxiixiyo waaweyn waxaana ugu macquulsan in kooxda Real Madrid ay dooran doonto dooq xil ciyaareedkan xagaagan iibsamayno laakiin xagaaga dambe wax kasta oo Borussia Dortmund ay dalbato waynu bixin doonaa waayo xiriir wanaagsan ayaa ka dhaxeeya kooxaha Dortmund iyo Real Madrid waxaan xasuusanaa maahiyadii Ashraf Hakimi iyo kale Renier iyo kale inay ka iibsadeen Nour Sahin oo kale kala iibsadeen xiriir macquul ayaa ka dhaxeeya labada kooxood in ka badan ama ka wanaagsan xiriir ka dhaxeeya Barcelona iyo kooxda Borussia Dortmund haddii aan kaga nimaadno Haaland iyo Mino Raiola runtii laba magac ku soo noqon doona marmarinay labada bilood dambe gaar ahaan Bejkan iyo muqalahan iyo warahanba waa laba magac oo aad iyo aad isku soo noqon doona labada bilood ee soo aadan sadarteed inay cadeystaan ayay noqonaysaa warka labada asxaabeen ugu gudubno waa war sida danabka ugu soo degay taageerayaasha Real Madrid Sergio Ramos ayaa seegi doona saddexda ciyaarood ee ugu muhiimsan xil ciyaareedkan kooxda Real Madrid labada kulan ee Champions League ee kooxda Liverpool iyo kulanka El Clasico rantii war aad u naxdin badan waa war laga naxo waa war cabsi leh waayo taageerayaasha Real Madrid markii maskaxdooda caqub ku saayiri kulamadii Ajax 2019 Manchester City 2020 maqnaanshaha Ramos waxay la micno tahay ka bixitaanka Champions League waana wax runtii loo garaabay waayo Ramos waa ciyaaryahanka koowaad ee kooxda Real Madrid waqti xaadirkan waynu xasuusanaa saameyntii ku lahaa labadii kulan ee Atalanta waana wax aad iyo aad looga xumaado laakiin kooxda Real Madrid maxay ay sameyn doontaa waayo kooxda Liverpool waa koox aan xaaladeedu wanaagsaneyn kooxda Liverpool waa koox ka cabanaysa inuu ka maqan yahay difaaceeda 7 bilood ee ugu dambeeyay sanadka dhan 2020 socda waxa ay ku ciyaarayeen difaaciyo kala duwan formation difaaciyo kala duwan mar Henderson iyo Fabinho iyo Williams iyo Phillips iyo Kabak mar Henderson iyo Ozan Kabak laba ciyaaryahan oo aad iyo aad u kala fog waxaan maleynayaa inay isticmaalaan sanadkan ilaa January ilaa imika March waxaan maleynayaa inay isticmaalaan 8 formation oo kala duwan laba ciyaaryahan oo difaac kala duwan marba wada ciyaarayay sadarteed Real Madrid waa in ay la qabsato ama ay la takayufto xaaladda bila Ramos waayo waa degdeg markuu waqti khasab laga maarmaan wayna wax ka barato casharadii kulamadii Ajax iyo Manchester City gaar ahaan Zinedine Zidane waxyaabaha uu khaladaad ku lahaa kooxda Manchester City waxa weeye inaanu sanadkii hore markii laga reebay aan sheegay waayo wuxuu sameeyay booska ama maqnaanshaha Sergio Ramos wax muhiimada muusin taasna runtii aad iyo aad bay u dhibtay kooxda Real Madrid markan waxa weeye inuu sameeyo anigu waxaan kula talin lahaa hadii uu dhigeysanay maqlay ama waxaan sameyn lahaa inuu saddex difaac uu ku ciyaaro dadka qaar fulinimo yaqaan saddex difaac laakiin saddex difaac waxa weeye ma doonayaan gool gadalso ciyaarta si kastaba inaad uga wanaagsanaan kartaa laga yaabo badinaad kala wareegto inaad khatar badnaato laakiin aad gool gadalsaa way adag tahay taa ayaana ugu macquulsan inuu sidaan adeegsan karo ciyaar la ciyaarayo Salah iyo Mane laakiin si wanaag hadii Firmino ciyaaro waxaan ugu hambalyeynaya kooxda Real Madrid inay u soo gudbaan wareegga aframaadka waayo Firmino tan iyo sidii koronaha Firmino kulan wanaagsan ciyaaraya 2-3 kulan ayaan daawanay Jota ayaa ciyaaryahanka ugu khatarta badan leh ciyaaryahanka Real Madrid ka cabsanaysa waa Diego Jota xitaa in ka badan Salah iyo Mane Sergio Ramos ayaa ka maqnaan doona kulamada Liverpool iyo Barcelona taageerayaasha Real Madrid waxaan u maleynayaa dhibaatada ugu weyn waxa ay ka soo gaaraysaa Champions League waayo Barcelona waa koox ay soo garanayaan guuldarada Barcelona lama micno laha dhamaadkii xil ciyaareedka laakiin guuldarada Liverpool iyo in halkan lagu macaasaameeyay Champions League waxay aad iyo aad bay u dhibaataynaysaa Sergio Ramos Real Madrid Zinedine Zidane iyo Florentino Perez afarta darafba aad ay u dhibaataynaysaa Florentino Perez marka hore wuxuu galay madaxtinimadii hadii uu ku galay madaxtinimada isagoo saddexdii xil ciyaareed ugu dambeeyay Champions League oo jigabax kaga baxay runtii helimaayay shacbiyadii iyo codayntii uu heli jiray doorashooyinkii hore Sergio Ramos qudhiis hadii uu sabab u ahaado kooxda inay ka baxdo saddex xil ciyaareed isku xigta maqnaanshihiisu mar hadii ay dhaawac tahay mar hadii ay casaan tahay wax loo oran ciyaaryahan aan wanaagsaneyn bal dhiga ama aan la isku haleyn karin gaar ahaan marka uu shaysan jir soo gaaray kooxda Real Madrid waxyaabo ay ku caanqatay waxa weeye qofku hadii uu goobo ama daafaco ama ciyaaryahanku hadii uu 32 ama 33 sano u dhaafo in la iska fasaxo lama islaameeyo duco loogu daro sadarteed
Zidane ayaa isaguna yimi. Zidane runtii waxaan walaalayaa inuu Juventus sidoo Juventus u maqlayba xanta Juventus inuu doonayo inuu Juventus qabsado doonis ayaa jirta waayo manu diidan waayo Zidane waxa la garanayaa wuxuu diiday marar badan in Man United la wareegayo inuu Chelsea la wareegayo kooxaha uu diidi jiray laakiin markii Juventus uu ka aamusay wuxuuna marar qaar uu amaanaa wuxuu sheegay inuu jecel yahay ciyaaryahan buu ahaa kale wax dabiici laakiin anu ma fogeysanayo in Zinedine Zidane wuxuu ciyaareedkan dhamaadkiisa uu ka tago kooxda Real Madrid haddii uu ku guuleysto Champions League taasna waxay keensanaysaa in kooxda dacarka afraad ee kooxda Real Madrid ay dhibaato badan ay ka soo gaadho waayo Zidane Ramos iyo Perez waa shakhsiyaad laakiin Real Madrid waa iyagu koox waa ciyaartooyo waa taageerayaal waa maamul waxay u baahan yihiin iyagu inay ka miisaan weynaadaan laakiin haddii imika tababar cusub la wareego kooxda haddii daafac cusub yimaado Sergio Ramos loo saxiixi waayo waa dhaawacan waxaan u maleynayaa in ay awood siin doonto Florentino Perez inaanu heshiis cusub ka saxiixin Sergio Ramos waayo waxa uu oranayaa yani ciyaaryaashiisa jira waxaan sheegayay uu dhaawac badan yahay waa sababtaan doonayay inaan ula heshiis cusub oo saxiixo waa sababahan doonayay inaan ugu saxiixin maaragtay waxa uu helaya yani xujo aan ugu saxiixin Sergio Ramos runtii xaaladda Real Madrid way iska cagran tahay waxa kaliya ay hagaajin karaya wax laba wax oo mid koobaad horta natiijooyin iyo koob talabadna waa Benzema waxaan leeyahay Benzema waxa ciyaaryahan yani furayo waxa guulaha Real Madrid xilli ciyaareedkan Benzema oo ciyaar xumaada Modric oo ciyaar xumaada Toni Kroos oo ciyaar xumaada waxa la micno noqonaysaa in yani kooxda Real Madrid ay xilli ciyaareedka loo dhibaato badan ay kala baxayso xilli ciyaareedka ugu dambeeyay wuxuu ahaa xilli ciyaareed iska wanaagsan waayo ay ku guuleysteen horyaalka iyo koobkii superka wax la tirsanaya maaha laakiin horyaalka ay ku guuleysteen waxayna kaga baxeen Champions League wajig gabax kulliba koox Ingiriis Manchester City waxa la doonayay inay taas aanay soo noqon si darteed waa inay kooxda ay wax ka barataa casharadii guuldaradii ka soo gaadhay ciyaartii Manchester City ama wixii ka soo horeeyay Ajax Amsterdam Eder Militao iyo Nacho miyay noqonayaan difaaca kooxda runtii waa wax aad foolxun in Real Madrid ay daawato yani labada ciyaaryahan ku daawato iyagoo Liverpool la ciyaaraya wanaagi doona waxa dhacay laakiin xulka Jarmalka maxaa helay xulka Jarmalka ku socda يعني xulkii miyaanu ahayn koobka adduunka 2014 ku guuleystay miyaanu ahayn xulkii aan ka maqnaan jirin afardhamaadka tartamada Eurada ama koobka adduunka miyaanu ahayn xulkii Jarmalka inagu Soomaali ahaan xulka Jarmalka waxaan naqaanaa xul aan ka maqnaanba de guulaha iyo afarta hore ciyaaraha finalka aan ka maqnaanba laakiin kubadu ma wanaagsan marka qaar bay maalmo xun bay ku tusaysaa imika xulka Jarmalka waa la dhigi karaa wax xulka ugu daciifsan xulka waaweyn yani marka koowaad horta ma jirto fikrada waadax oo Joachim Löw sidii hore waxaan moodaa in Joachim Löw uu ku nool yahay ciyaartooyada Bayern Munich oo kaliya maadaama imika ay yaraadaan ciyaartooyada Bayern Munich ka imanaya xitaa hadii ay xulka qaranka ay ku jiraan ay saameeyaan aanay kula ahayn yani Neuer iyo Kimmich marka laga yimaado Goretzka iyo Zuli iyo Leroy Sané iyo Gnabry mug weyn kuma laha xulka laakiin Kimmich iyo Neuer oo kaliya waxa soo haray waxa ciyaartooyada mug kula waxa weey Gundogan oo Manchester City Kai Havertz waa xulka qaranka yani ciyaartooyada wanaagsan ku jira oo Chelsea aan kamid ahayn xitaa ciyaartooyada ugu wanaagsan marka koobaad markii fikrada xumaanta ay tahay Joachim Löw waxa loo imanaya ciyaartooyada hadii gaar loo qaado marka André ter Stegen guriyaha kooxda Barcelona marka xulka qaranka uu ciyaarayo guriya xun weey runtii waa run waadix oo xaqiiqo qof kasta xulka qaranka Jarmalka taageeraan uu og yahay marka André ter Stegen hadii xulka qaranka Jarmalka uu ciyaarayo dhibaato ayaa soo socota ciyaaryahanka labaad Timo Werner yani Timo Werner waa mid kamid ah mushkiladaha xulka qaranka Jarmalka haysta yani wala bedel fiican baan u ahayn wala waxaan ahayn ciyaaryahan markan ciyaarayo Janis wuxuu khasaareynaya yani aanu qof kale aanu khasaarin xitaa uu caadeysi maaha wax mar dhacdo mar labaad dhacdo waa wuxuu caadeystay inuu Janisada banaan uu dayaco Timo Werner waxaasna waa dhibaato xulka qaranka haysan doonta Eurada waayo waxa la ciyaarayaan Faransiis waxa la ciyaarayaan Portuguese waxa la ciyaarayaan Hungary maaha xul yani xulka yar waa xulka ugu dadaalka badan laguna adag ra'yahanteeda sidarteed waxa soo raacay ciyaartooyo kale oo imika Klosterman ciyaaryahan la dhaho Leipzig u ciyaara waa ciyaaryahan hafawaad iyo khaladaad badan sameeya sida kulankii Romania khaladaad badan ayuu sameeyay ciyaartooyo ayaa jira Gundogan Kimmich Goretzka Neuer afar ciyaaryahan marka laga yimaado xitaa runtii gaar isku wanaagsan xulka Jarmalka ciyaartooyadu way liitaan marka loo eego Belgium oo kale Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Alderweireld, Francisco marka loo eego Paul Pogba, N'Golo Kante, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé marka loo eego xitaa Portugiiska Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diego Jota, Bernardo Silva yani marka loo eego qaran xitaa Ingiriiska oo kale Ingiriiska aad uga wanaagsan xulka Jarmalka waxa moodaa in tayada ciyaartooyada aad looga tagay taasna waa waxa
farqiga keenaya in maanta Jarmalku aanu sharaxnaan ama aanu kamid ahaan xulka ku guuleysan karaya Eurada 2020 taas ayaan u soo weynay anigu maanta postigan ka soo qoray xulka Jarmalka waxa uu ahaa xulkani yani ma laha xitaa wadi guriyada kaga soo baxay guriga ku jiro group adag ha wanaagay saddex xul ay ka soo bixi karayaan meesha oo ay ku soo bixi karayaan xulka saddexaad oo kale laakiin awoodda xitaa xulka saddexaad ay kaga soo baxayeen Jarmalku ma laha sida wararka Jarmalka ama Bale iyo kii kale soo qoray waxa weeye ceeb weyn baan ugu soo socota ma ahayna ka qayb galnay Eurada sidana waa ceeb aad iyo aad loo dhaliilay waayo xulka qaranka Macedonia xulka adkaaday ruhantii dhibaato badan ay Jarmalku soo socoto hadii aan la sameyn isbedel dhaqso ah Joachim Löw markii hore uu daalay in badan xulka qaranka Jarmalku soo haystay daadii laga yaabay inay qabato laga yaabay fikradihiisa la qaybay ciyaartooyadu waxa weeye ciyaartooy runtii aan ahayn tayadii yani ciyaartooyadu hadii ay isugu jiraan hal profile oo kaliya hadii ciyaartooyadu ay noqdaan hal qaab oo kaliya xulka qarankaas sida looga adkaada way fududaanaysaa waayo waxaan garanaynaa waqtiga 2014 xulka Jarmalka waxay haysteen ciyaartooy xoog waaweyn sida Jérôme Boateng oo kale Mats Hummels oo kale Sami Khedira oo kale ciyaartooy xariifiin oo kale ay haysteen oo xagga maskaxda kubadda ka ciyaar sida Mesut Ozil oo kale Thomas Müller oo kale Mario Götze oo kale waxay haysteen ciyaartooy yani taktikiyiin oo positionada si fudud u bedesho kale sida Bastian Schweinsteiger oo kale Philipp Lahm oo kale xitaa Manuel Neuer goolayahood oo kale waxay haysteen ciyaartooy mutanawiin oo kala duwan taas waxay ku fududaynaysaa in aad qaran kasta aad ka guuleysato waxaan oranay Euradii koobka adduunka Portugiiska waxay kaga guuleysteen gurubyada Algeria waxay ka guuleystay wareegga 16 wareegga 8 Faransiiska ka adkaadeen wareegga 4 Brazil bay 7 halka ka adkaadeen ciyaartii koobkana Argentina ay ka guuleystay waa qaramo adag ruhantii maaha qaramo yani wada fudud ma soo marin hadii xitaa la ciyaar lahayd Talyaaniga ka guuleysan lahayd Ingiriis hadii la ciyaar lahayd ka guuleysan lahayd Colombia hadii la ciyaar lahayd ka guuleysan waxay qaranka ugu dunida ugu adag ay ahaayeen laakiin imika ciyaartooydu waxa weeye ciyaartooy xitaa aan shakhsiyad adag aan lahayn oo ciyaartooy aan guuldaradu dhiban spirit ayaan jirin waxa aan jirin yani isku duubnaan baan jirin taas waxay u fududaanaysaa Macedonia xitaa marka laga yimaado xul kasta oo kula ciyaaraya inuu ka guuleysto waa tahay asxaabi muuqaalkeena maanta intaas inoo geeyahay fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena ama page-keena subscribe sar like share aad iyo aad u mahadsantiin asxaabi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh